السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي قوا أبوان إنجنير عبد أبو بكر عثمان وكنول دلك الصومالي قارهان مقدشو قارهان دقمد وابري. أنيقو كوهلايو مقعد من يرد دقمد وابري قارهان واحد هرسيت وحان عاو هالكان أصو فريستي قردقو انتاذن قدودين. أوكي قردقو انتاذن قدودين وحان ولا جيدا باقي وحو أصعدا لمان madaxda dowladda federaaliga Soomaaliya yar iyo weyn dhinac walba ee maamulka hayaan ayuu u socdaa baaqayga sida mataqaanaa golaha baarlamaanka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Madaale saddex qodob ayaan ka hadli doonaa insha Allah marka intaan hadlay waxaan farayaa nin walba mas'uul ah ama sida beesha aniga imetelaysa nafsadeedaba in warkeena ay si sahalsanin ay isku dayaan inay wax ka qabtaan waxaan cawasho ka nahay maamulka degmada Waaberi maamulka degmada Waaberi wuxuu hoos tagaa gobolka Banaadir sida oo macnaha xeerka ah aan ognahay okay waxaan ka hadlaynaa sideediba xuquuqda aadamiga waa in laga hadlaa markaan warkeyga midda koowaad aan ku bilaabo waxaa jiro sax markaan u hadalno qodob ah ama group ah oo loo yaqaano kaluundi Soomaalida way wada taqaanaa kaluundi waxaa loo yaqaanaa dadka meelaha alla bariga ka jiro markay sagaan oo laga siiyo wixii Ilaahay calfo laakiin waxyaabaha haraaga loo qeyb adiga kaluundi baa taa xoogaa sugaan lahaa Soomaa okay markii la dhahayo dawladdan waxay ku dhisan tahay 4.5 macnaheedu waxaa laga dhigay xal inay tahay xalkii aan qaadanay 4.5 xuquuqda aan ku helnay ayaana lagaga dabayimay markaan oon faahfaahiyo hadalka aan caddeeyo Muxudiin Muriidi Muuse waa nin ku dhashay degmada Waaberi oo la yaqaan caan ah oo na mudan xilka hadda oo lagu haysto waa mid uu mudan yahay yacni hadduu fikirkeyga aan lahaa ama maamulkeygu aan lahaa Muxudiin wuxuu yeelan lahaaba gudoomiyaha degmada Waaberi uu yeelan lahaa sababtoo ah Muxudiin taariikhdiisa wax idinkaga xuso asigoo jira 11 sano ilaa 12 sano inta u dhaxayso ayuu degmada Waaberi ku istaagay qaran ayuu ku istaagay markaan ku dhahay qaran uu ku istaagay wuxuu ahaa ubaxa degmada Waaberi wuxuu ku soo gaaray reer uu gaaro mataqaana hadduu Ilaahay ku roon yahay wuxuu gaaray barbaar uu ka baxay macallinimuu soo maray okay wax yar uu nasiib u yeeshay hadda xilliga dambe inuu noqdo gudoomiye waaxidka degmada laanta horseed wuxuuna taas ku mutaystay weli uu mudaya uuna mudnaan doona aan jecelnahay inuu sii haayo marxuum Allah u raxmado karaama Muriidi Muuse waa Muxudiin walaalkiisa oo waqti ku soo bixiyay quruxda badan oo degmada Waaberi maanta u jeedaan ana abniga u jeedaan ba noqotee wuxuu ka mid yahay halyeeyadii oo waqtiga badan u soo bixiyay alxamdulillah shukra bil caalamiin ilaah baa meel marin Muxudiin markaas codsi ka yimid dadka deegaanka iyo degmada ayuu ku yeeshay kursiga walaalkiisa okay marka xoogaha maanta waxay la noqonaysaa midabta koor in loo qoori waa Muxudiin maamulka uu haysto maamulka hadda uu haysto in loo qoori waa qalad taas okay markaan qahayo Google dhigashada aan gafa aan dhiganayo waxay ka mid tahay yacni Soomaali waxay dhahdaa ama maama hore oo u jirtay gabooyga gamuunka geerka markuu u hayo waxa lagama garto markuu gaasir yahay guluca ka yeesho gabooyga gamuunka markuu geerka u hayo waa ciidan yahay oo saan markaa yeesho dhabaaq male laakiin marka laga bixiyo 5 ilaa 6 waxaa ka soo bixi doona 5 qaraa ka yeereys okay annaga waa caburneen 5 qarta waxaa kalifay faragelinta haddana la soo farageliyay okay waa nasiib daro waa ayaan daro degmada Waaberi markaan xusuus u baxo dumar annaga naga mid ah rag annaga naga mid ah ayaa dhiigooda u baxay ayaa dunida u seegeen ayaa caruurtooda agoon ay u noqdeen okay marka meeshaan ku tashanayna maanta in loogu taliyo xoogaa waxaan u arki karaa midabta koor inay tahay taasi waxay u dhigantaa midabta koorkana runtii ma aha mid oo fiican ama qofka bini'aadamka u dulqaadan karo ma aha okay maanta macnaha adduunka sidiisa dawladdu waxay ku dhisan tahay aqoon maadi iyo diin ayay ku dhisan tahay dulqaad iyo dabiici ayay ku dhisan tahay okay annaga dhalinyaradu Waaberi markaan nahay oo hadda macnaha qofka aan u hadlayno Muxudiin Muriidi uu yahay aqoon naguma yara maadi iyo diinba naguma yara maamulna naguma yara waxaan fahmi la'ahay marka meesha isha naga qabatay ayaan garan la'nahay marka waxaan jecelnahay codkeena in wax laga qabto oo la qaado
ilaa iyo hadda macnaha annaga degmada shalay saan u ahaynaan maantana aan u nahay biidnillahu kariim waana u ahaan doonaa laakiin waxaan dhaliilsannahay codka ba'ani oo ka soo baxay degmada oo ah Muxudiin in oo shaqada laga qaado yacni lama aha mid macquul ah waxaa meesha ku jirta marka ay dadka ilowsan yihiin ardayda dugsiga fadhiso macallinka oo wax baraya haddaysan ku qanacsaneen yuu wax barayaa ii sheeg ilaa markuu soo galaba ardayga mid intuu u jeesanaa midna intuu u jeesanaa waa kee ninka duruustiisa qaadanaya marka waa maya okay haddii aan dhahna hadda macnaha annagoo aan hadlayno hadalkeeni oo macnaha nuxur in laga baxsada aan jecelnahay hadda Muxudiin iyo ninka hadda loo soo wado booskiisa cod ha loo qaado haddii la dhaho maxay idinla tahay waa beri inuu cod helayo maxay idinla tahay cod qaadasho markii la dhaho maxay idinla tahay marka Muxudiin waa beri uu ku dhashay waa beri meesha laga gala meesha laga baxo yaqaanaa maamulkeedu yaqaanaa marka aniga ka Cabdi Abuukar ahaan ama ka injineeri ahaan degmadan deganaa waa ka dhex shaqaystaa haddii maanta ani qof aan ka seen uu maamulkeyga ila yimaado yacni hore inaan ka ayida lagama yaabo sababto amaba aqaanaba soo ma waa mid meesha ku jirta iyadan markaan dhabtii aan u hadalno marka anoo warka gaabinaayo warkeygana aan jecelahay inaan soo gebagabeeyo waxaa jirto gacan gooracow kuula taqaan goondis ma yeeshaa lahay ninku gaadi waa loo gambadaa geeri yaqiin waa ninku gaadi waa loo gambadaa geeri yaqiin waa marka isma waalin go'aan waxaan gaarnay gar inaan dhigano intaanan gadoodin annaga aan gamuunka aadin ma fahantay garaan dhiganay garta aan dhiganay sida sharciga uu ku saleysay ama dastuurka uu ku qoran yahay hano lagu qabto wax ilaa Muxudiin ibn aadan waa haddii qalad uu gala hataa qaladkiisa wuxuu leeyahay gacan qabad wuxuu xaq u leeyahay dadka uu matalaya in la waco oo gogol loo dhigo oo la dhaho war ninkan maamulkiina haya intaas ayaan ka dhaliilnay maxaa laga bedeli karaa oo maxaan ka qaban karnaa markay ka soo baxdo wax sax ahayn markay ka soo baxdana weli waxaan xaq u sii leenahay go'aan waxaan gaarnay Muxudiin inaan ka casilno halkaan aan keenno new people oo maamulka qabto taasina mid aan xaq u leenahay laakiin markaan aragno yacni sidaan rabnaan samaynaynaa waxaan noqonaynaa dadkii shalay deegaanka ama degmada u soo dhintay u soo baaba'ay waqtigooda ku dhimayey inaanse waxba aan ka matelin waxna aanan ka ahayn markaan hadalka soo gaabiyo dhammaan dowladda mas-uul meel walba uu joogo beelaha annaga na matalo sida guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada waxaan rabnaa xuquuqdeeni inuu ilgaar ku fiiriyo uu wax noogu qabto kolay annagoo aan filayno jawaab naxariis leh inaan heli doono biidnillahu kariim laakiin waxaan idin sheegaynaa annaga codkaan shalay Muxudiin ku taageernay weli waa ku taagannahay in waxna loogu qabta aan jecelnahay yacni maanta Muxudiin shalay markii kursigaas madaalo lagu soo dhaweynayo hoolka weyn oo degmada waa beri lagu soo dhaweynayo ma xasuusan karaa hoolka macnaha agabka laga isticmaalo inta tiilay ma sheegi karaa waa maya maantana agabku wuxuu taagan yahay agab oo dadka dhan ku qancaan oo howlo badan lagu qabto in laga helo yaa ka shaqeeyey waxaa ka shaqeeyey qofkii markaas oo mas-uuliyadda haysta ayaa ka shaqeeyey soo maa okay Muxudiin ma aha diaspora ma aha waa nin u dhashay dalka kuna soo barbaar hataa kuwa kale dalka ha u dhashaan laakiin aqoontoodii iyo dabeecigoodii wax soo barashadooda dal shisheeye ay ku soo qaateen soo maa laakiin ninkan deegaankii ayuu ku dhex jiraa ilaa innaaw ma fahanti weli wuxuu diyaar u yahay deegaankiisa inuu wax u qabto mas-uuliyaddiisa uu u guto sida haqa ah waajibka ah inuu u guto okay hadday sinaan iyo cadaalad ay jirto waxaan jecelnahay hadalkeeni in wax laga qabto hadday sinaan cadaalad jirinna hala dhaho nin walba seeftaada galka kala baxo meeshaarti ka soo biyacba la dhaho warku waa caddaanaya ma fahantay markaan warka soo gaabiyo Soomaali hadday 9 milyan tahay markii la qeybiyo 3,000 waxay noqonaysaa qowmiyadda annaga hadda midibta koorka lagu hayo beesha jireer weyne ayay noqonay taasina waxaa kaaga daliil haddaan kuu tilmaamo dariiqa aad u mari lahayd jilib jamaama jannaale jiinkii afgooye johor inta jiin wobi marto janankooda aniga ninka ila soo jaarana jid uma joogsado ninka ila soo jaaro jid uma joogsado waajaheeyaa anigu marka maxay tahay sababta oo xaqayga loogu soo horjeedo alcamuum anoo jecelahay warka inaan ku sii dheeraanin oo na filay warkayga in wax laga qabto waxaan ku soo gabagabeynayaa ceeryaamo ninkii roob u mooday asiya aqligiisa cabal la jooga nin maalin u moodaya asiya aqligiisa isma cishto isma canaanto asiya aqligiisa cabki caadil uu na siiyey caanahan cabi doono axad ma celin karo cidla aad ku carooteen isoo cishta canaan ciil ma tiraayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu